بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آديات بردي السلام يا أولى ليال مالك استوى دويدات كتشوكتان إن شاء الله تبارك وتعالى وحا أي نساك كلفايدي سندونا كلمة راكوبا أو كصابصا سيفين كما الادخار يقاب كقفكو هانتديس أو معمولنا يو sida aynu marar badan ka sheekayno ama aynu ka hadalno maalku waa laf dhabarta nolosha diinta iyo dunyadaba walaa tu'tu sufahaa amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaama ilaahay wuxuu tilmaamay tabaaraka wa tacaala xooluhu ama maalku inuu yahay mid lagu taagan yahay mabaadi'da iyo diinta ku taagan nolosha dadka ku taagan cilmiga ku taagan dhismaha ku taagan wax kastoo dowladnimada ku taagan shacabka ku taagan wax kasta oo la magacaabo ama la tilmaamaa wuxuu ku taagay maalka marka ilaalintiisu waa arrin diina daruuri ah aad iyo aad ay u wanaagsan tahay dabcan barasho fara badan iyo aqoon fara badan buu u baahan yahay laakiin haddana wacyigelinta iyo tilmaanta meelaha ugu muhiimsani waa arrin qofka adduunyadiisa iyo aakhiradiisiiba kabaysa oo aad iyo aad u qiimo badan waxaynu insha allahu kelmadan ku tilmaami doonaa waxaa la yidhaahdo kaydsiga oo marar badan aada laisoo weydiiyo qaabka qofku wax u kaydsan karo saddex jaanib ama saddex eriyaynu ka eegi doonaa marka koowaad fahamka lacag la kaydsada ama la urursado islaamka iyo waaqicaba marka labaad waxaynu tilmaami doonaa sidee wax loo kaydsadaa marka saddexaadna waxaan tilmaami doonaa maxaa lagu falaa waxaan la kaydsanayo xaggee la geynayaa faham darrida ama khaladka faham ee gala sayfinka ama kaydsigu waxaan odhan karnaa waa sababta ay ka dhashaan in badan oo faqriga iyo baahida iyo dhibaatooyinka bulshooyinkeena haysta waxaa laga yaabaa dadku inay yidhaahdaan maxaa wax ka kaydsanaan ka urursan ilaahay baa bixiye mahmaah markaa carbeed baa jirta oo la yidhaahdo irshukal abyad liyoomika alaswad shilinkaaga cad waxaad u haysataa maalintaada madow fahamka iyagoo dadkeenuna ka duulayuunbay yidhaahdaan dabaka warwar baad qabtaa maxaad ka kaydsan baritoole ilaahay baa jire markaa fahamka loo qaatay hanti kaydsigaa wuxuu noqday inuu qofku arsaaq ilaahay kaydsanayo iyada la sugayay laakiin fahamkaas waa faham aada u qaldan wey waxaa wax loo kaydsadaa sida saxda ah waa lilbinaa waa si wax loo dhiso weyaan adduunyadan gebigeedaba ma jirto wax aan isku dul dhismo shay kastoo la doonaya in la dhiso hadduu cilmi yahay iyo hadduu gur yahayba dee dhito kasoo bilaabmaya wax yar baa la dhigaya wixii baa wax lagu daraya markaas wixii wax dhismay oo taagmay markaa uu noqonayaa hantidu sidoo kale iyaduna waxay u baahan tahay in la dhiso oo ay kor u kacdo maalinba maalinta ka dambeysa fahamka ugu saxsan ee dikhaarka ama sayfinku ka yimaadaana waxa weeye qofku inuu naftiisa isagoo cuskado intuu meel kale eegaya ama cid kale wax ka filanaya ama cid kale wax ka sugayana weligii waxba uma soo socdaan qofku waa inuu isagoo isu tashado inta soo gashana markaa uu maareeyo ama uu isku dayo inuu wax ka samaysto marka horta fahamkeeda ansaxno waxa wax loo kaydsanayaa maaha maxaad cuni doontaa taa ilaahay baa hayee waxaa wax loo kaydsanaya waxa weeye sideed wax u dhistaa wey sidee baad wax u kobcisay ayaad u dhistaa marka aynu ka nimaadno fahamka inaynu saxno dee diintana waa ku sugan tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisana waa u kaydin jiray reerihiisana waa u kaydin jiray taas way sugan tahay marka aynu soo gallo haw sidee wax loo kaydiyaa ama loo sameeyaa qofba sida horta uu awoodo iyo wixii ka go-a ayaa fiican inuu farsamaysto laakiin waxaa la yidhaahdaa ugu yaraan waxaa kusoo gala dakhliga inkomeka kusoo gala 10% ayaabaa wanaagsan in la sayfgareeyo haddaad $1,000 ku shaqayso 10% waa $100 haddaad ku shaqayso $500 waa $50 10% $100 oo keliya haddaad ku shaqayso 10% waa $10 weyaan baranta intaa inaad isku daydo inay kaa go-do dad badani dabeeto waxay leeyihiin waxba igama go-ayaan iska daa inay wax iga go-aane bisha bilowgeeda aakhirkeeda meelaha 15 markay marayso anigiibaa wax dib usii raadinayaba arrintaas waxay ka dhalataa waxaa la yidhaahdo suu tasaruf fi lmasaariif qofku isticmaalka uu hantidiisa isticmaalayo oo qaab xun markaa uu u adeegsado ayaabay ka dhalataa arrinta noocaasiya marka koowaad horta waxaa la sameeyaa lama bixiyo waxaa la bixiyaa waxaa kasoo hara kaydsiga lama isticmaalo ama lama kaydiyo waxa nafaqada iyo beelka kasoo hara hadalkaasi muxuu macnihiisu yahay $1,000 markuu kusoo galo kaydsigaa lagu bilaaba horta $100 sayfinka akoonkiisa lagu ridaa 9 soo harayba markaa lagu noolaada wax lagu qabsadaa laakiin laysma idhaahda horta bixi baahiyaha bixiyo kadib sayfinka ama wixii aad dhigaysa dhig leesh baahida adduunka maba dhamaataba
marka sidaadaba haddii $1,000 aad ku shaqayn jirtay waxaan hubaa inaad $900 isaga noolaan karaysid oo adiga marka kaleba dhulka iska wareegaya marka 100ka waxaad ka soo qaadaa kaano isaga inaad qaadanin waxaad ku xisaabtantaa $900 bishii inay ku soo galaan saddex arrimood baad markaa ku habeyn kartaa ama aad ku daweyn kartaa khalkhalka masaariifeeda kugu jira ama hantida kaaga jira ka koobaad waxa la yiraahdaa taxakum fi almasaarif waa inaad biilkaaga aad uga warhayso halka ku baxaya iyo waxaad u baahan tahay waxaas aad uga warhayso sida tusaale ahaan waxaad soo iibsanayso ama aad doonanayso ama wax kasta oo ay kugu soo dhacdo miyaad ka soo iibsato Umar ibn Khattab radiyallahu anhu aw kullama ishtahayta ishtarayta markastoo wax kugu soo dhaca ma iska doonanaysaa waa mabda weyn oo iqtisaadi oo saxaabigu inoo sheegayo qofku inaanu naftiisa uu iska raacraacin oo waxay hadba u sheegaysaa aanu doonanin afaweyno dadkeena haysata weeyaan waxay ku leeyihiin ma fadhin karayaba $100 jeebkay ku soo dhaco ilaa aan ciriir dhulba soo gugo oo 100ka soo baabiyo ma fadhin karayo taasina waa balwad sida loogu xaraarado qaadkii sigaarka iyo bunka iyo dadka cabaa ugu xaraaradaan ayaaba qofku ugu xaraaroonaya maskaxdiisu yaro dopamine ay soo deynaysaa marka uu wax soo iibsado arintaa waa inuu qofku iska ilaaliyo marka wixii uu u baahan yahay gaajay isu dilimaayay wala tajcal yadaka maqlulatan ila unuqika ولا تبسطها كل البسط وليد يا عبيد يا در يا علمي يا حرقه وحو uga baahan yahay buu doonanaya wuxuu isku dayayaa wuxuu u baahan yahay meeshana wuxuu ka saaraya xaraga socodka ama laafiyoodku ka saaraya qodobka labaad waxa weeyaan ee kugu kaalmeynaya inaad wax kaydsan karto waxa la yiraahdaa deynta totally noloshaada inaad ka saarto haddii aanad qaadan jirin aad joojiso haddii aad qaadatana inta aad qaadataa halka ku xidho iska ama bixiso oo sidii marka ugu dhaqsaha badan aad u bixin karaysa aad u bixiso haddii marka waxa weeyaan aad imika doonaysay inaad qaadatana aanad qaadanba oonad raadsanin deynta waxa la yiraahdo deynta hal mar baa la qaataayo waa marka passive income ay ku soo gelinayso lacag baad soo qadaysatay laakiin lacagtan uma isticmaalin waxaad cunaysaa ama aad isticmaalaysaa waxaad gelisay wax ku soo gelinaya oo adiga jeebkaaga dib wax u soo gelinaya deyntu hadday tahay waa fiican tahay gaari baad haysataa boos baad haysataa ku shaqeynaya gaari baad soo deysatay waad gelisay deyntina waad iska bixisay adna waxba ku soo geliyay taas waa heer sare waa deymaha dunyada laga faa'iideysto weey laakiin deynta aad ku bixinayso wax adiga uun kugu baxaya oo adiga uun kugu dhamaanaya iyadoo boqmaha uun bay kaasi daloolinaysaa oo ka goynaysaa wax ay ku dhibta mooyaane weligeedna dheef kuma siinayso qodobka saddexaad ee keenaya kugu caawinaya inaad wax safe gareyn karto wax samaysan karto wax weeyaan waa inaad kor u qaado dakhligaaga income-ka ku soo gala meel baad ka shaqaysaa gelinka hore $200 baa lagu siiyaa galabtii iyo habeenkii hore maxaad qabataa waa inaad keento sidii aad ku kordhin lahayd dakhligaaga oo maalayacniga iyo maqaaxiyo farfadhiga iyo waxa intaad meesha ka saarto inaad shaqaysataa aad ku tala gasho oo ibn aadam muskan galabtiina shaqo raadi habeenkiina shaqo raadi ma helayo shaqo waad helaysaa adiga aan iska shaqaynayn haddaad barato one skill hal xirfado kaliya laba xirfadood kaliya inta waqtigu ka lumayo tusaale ahaan designer baad noqotay wax kale aad baratay barnaamijyada iyo programming aad baratay si fiican waad u baratay oo dadka aanad kala sinayn waliba 6 bilood oo kaliya waxaad ugu sugi kartaa xirfadaha si aan caadi ahayn adiga waxaad noqonaysaa lacag socota laakiin dadkeeni dacaajis iyo wahsi iyo meel qabowbi wax ka wada raadinayaan oo kaad la sheekaystaa wax ku oranaya iyo la yaro qabow meelahan oo ka laabo ayaabaan u baahanay leen qabow wax ku yimaadaan shaqo tag oo ku xisaabtan inaad marka hard work shaqo adag gasho shaqo adag sababta aad u galaysaana waxa weeye lagugu baraarujinaya lagugu cadinaya lagugu waaninayo waa saad banaadam ugu baahan oo gacmaha hoos dhigan oo dadka u shaxaad adiguna lafaaga wax u noqo inta kugu xeersana waxa kula noqdaan waxaan ku soo koobaynaa walaalayaal aan ku soo ururinaynaa hantida la sameeyo lagu sheegaa waxay ka bilaabantaa saving ka bilaabantaa kaydsiga ka bilaabantaa waxa marka gabagabadu ay tahay halka lagu kaydsanayaana ilaahay uu inoo sakhiray maanta oo waa bangiyada weey iska ilaali inaad wax kaydsato oo aad ku kaydsato disti guriga ku dhex taala ama daasad ama hal ku dhex taala khasnad iska ilaali marar badan waad aragtaan adduunyada dhibaatooyinka ka dhaca muqdisho waxa laga soo sawirayay mid kulaylkii ka googooyay lacagtii suuqeeni waa ahayn waad ogtihiin isagana dhibaatadii ka dhacday lacagii ku gubtay intaas soo qof baa waayayba bahal bay ku gurayeen soo xasaynayeen bay mooyay xagay martay waxa soo dhaw kaga fiican adduunyadu way socotaa nidaam system maaliya baa jira meel lagu dafirayn baa jirta meel daqiiqad kula soo baxaysa jirta bangiyada la xiriir bangiyada barasda loo isticmaalo telefoonadaada ku xidho account ka samayso
waxaaga halkaa ku rido haddaad doonto iskaba xanibsi aanad ula soo bixin hadhowtale xataa bangiyadu faa'iidooyinka aad keenaysa waxaa ka mid a haddii adigu bangigaada wax uga baahato transactionkaagii ma eegayaan iyo lacagahaad ku ridatay iyo say wax u socdeen kadibna waa lagu garan karaa inaad tahay qof waxhaysto oo la aamini karo haddaad laakiin baasha gurigun ku kaydsato dee yaad isgaranaysaan oo yaa warkaaga haya marka aad bay u fiican tahay in laga faa'iidaysto bangiyada ilaahay maanta ina siiyey khayr kale